كل wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka kulanka wararka falanqayntiina fiidnimo xogaha qarsoon oo garahan oo kala kala socotaan channelkan waxaanu caawa ku eegi doonaa gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya shaqadan madoobe oo wajahaya xaalad xasaasi ah oo la xiriirta kuraasta laga soo doortay gobolka Gedo ee 32 kursi ah ee lagu soo kala doortay Ceel Waaq iyo Garbaharey oo ah in uu go'aan ka gaaro si ay uga mid noqdaan 16 kamid ah doorashada madaxweynaha soo socda warar iyo talaabooyin uu qorsheynayo inuu u qaado xubnaha la saadaalinayo in shaqada madoobe oo fasaxi doono ayaanu eegi doonaa inta ka horeysa waxaan idinka dalbanayna daawade haddii aad ku cusub tahay channelka kulanka wararka fadlan subscribe sar haddii aad ka heshid wararka iyo warbixinada halkaani aan soo gelina like garay sidoo kale aragtidaada noogu reeb qaybta hoose ee commentiga mahadsanid وهجاج حلبان شقادن محمد نور شقادن مدوبي هي لو دورتي حالي inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kadib doorasho saacado badan qaadatay xilibaan shaqaadan maxamed nuur shaqaadan madoobe ayaa wareegii ugu dambeeyay ee doorashada kaga adkaaday xilibaan xasan cabdi nuur kaas oo la yimid 89 cod halkii wareegii hore uu la yimid 98 cod halka shaqaadan madoobe uu helay codadan 163 cod durbadiiba waa la dhaariyay hawsha ugu horeysa ee hortaalo ayaa waxa ay tahay sida uu ka yeeri doono arinta gobolka Gedo iyo xildhibaanada lagu soo doortay Ceel Waaq iyo Garbaharey doorashada ayaa qaadatay waqti aad u dheer kadib markii saacada ay wax yarneed arinta xildhibaanada lagu soo doortay Ceel Waaq oo xildhibaanada taageersan filla Soomaaliya ay diideen inay kulanka ka qayb galaan waxayna qarka u saarantay inay baaqato doorashada lagu doortay madoobe ugu dambeyntii waxa arinta lagu xaliyay in codeynta laga reebo 16 xildhibaan ee lagu soo doortay Ceel Waaq iyadoo sababta lagu sheegay inaysan haysan waxyaabihii u fududeyn lahaa aqoonsigooda kararka aqoonsiga ayaa waxa bixiya xogayaha baarlamaanka Cabdikariin Buux waxaase meesha ka marneen ogolaanshaha gudoomiyaha golaha shacabka shaqaadan madoobe wuxuu ku xiran yahay mucaaradka gaar ahaan Shariif Sheekh Axmed waxaana aad loo filayaa in uu sameeyo sida ay doonayaan oo ah in la fasaxo kuraasta Ceel Waaq balse su'aasha waxay tahay ma sameyn doonaa mise waxa uu qaadan doonaa talaabo uu isugu muujinayo inuu yahay dhexdhexaad arinta kale ee jirta ayaa ah in xildhibaanada Ceel Waaq ay soo ansixiyeen guddiga doorashada heer federaal oo sidoo kale ah kan soo ansixiyay aadan madoobe sidaas darteed aadan madoobe uma fududa inuu sharci darro ka dhigo go'aanka guddiga isaga soo meel mariyay waxay ahaataba waa go'aan la filayo inuu aadan madoobe qaato waxayna noqon kartaa inuu xaaladda ku soo xumeeyo farmaajo guuldarro kala kulmay doorashadii golaha shacabka oo looga adkaaday musharrixii ay wateen filla Soomaaliya ee Xasan Cabdi Nuur waa markii labaad ee aadan madoobe uu hogaamiyo golaha shacabka isaga oo sidoo kale hore u soo noqday afayeenka baarlamaanka muddadii u dhaxaysay 31 Janaayo 2007 ilaa 25 May 2010 dhaqdhaqaaq ay isugu dayayaan dhinacyada iska soo horjeeda ee gobolka Gedo ayaa la doonayaa in doorashada madaxweynaha oo aan wali la waqtiyeen inay ka soo muuqdaan garabka Ceel Waaq ka soo baxay hasaate aadan madoobe ayaa rajo badan laga qaba inuu yahay nin waayo arag ah oo isku dayaya inuu wax badan xeeriyo laakiin waxa hortaala caqabado badan oo dhinaca sharciga ah iyo sidoo kale saameynta siyaasadeed go'aankiisa uu yeelan karo haddii uu dhinaca Garbaharey meel mariyo maadaama Axmed Madoobe uu ka hor imaanayo wulina uu talada hayo halka farmaajo ay u badan tahay in tartanka uu isaga harayo taas oo saameyn culus ku noqon karta haddii aadan madoobe uu qaato dhinaca filla Soomaaliya go'aanka ay doonayaan laakiin sida loo badinayo haddii uu qaato dhinaca Ceel Waaq waxay u egtahay inuu ka dabaalanayo xaalado badan oo birri caqabado ku noqon kara maadaama maamulada Puntland iyo Jubbaland ay gadaal ka riixayaan dhinaca Ceel Waaq farmaajana ay u egtahay in uu daaqada ka bixi doono doorashada madaxweynaha sidaasina ay uga hari karto caqabada Garbaharey haddii uu farmaajo meesha ka baxo oo ah garabka kaliya ee ku mid sidaya in doorashada laga reebo guud ahaan kuraasta gobolka Gedo guud ahaan waxa caawa intaas ku soo gabagabeynaya falanqaynteeni fiidnimo iyo xogaha qarsoon oo garahan oo kale aad kala socotaan channelkan daawada haddii aad tahay mid nagu cusub fadlan ugu soo biir oo subscribe taaba haddii aad hore nala joogtana fadlan nala sii joog oo sii share garay si aan u helno saaxiibo adigoo kale haddii aad ra'yi noo wadana qaybta hoose commentiga noogu reeb laagana waa lama dhaafaan